kulan wacan kuna soo dhawaada mar kale warkii oo faahfaahsan aan ku bilaabay mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Norway oo boqosho ku tagay magaalada Muqdisho Maxamed Yamani ayaa inoo hayay warbixintaas Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Norway Borge Brende iyo wafdi oo hogaaminayo oo boqosho ku tagay magaalada Muqdisho labada dhinac ayaa ka wada hadlay xiriirka u dhaxeeya iyo taageerada ay Norway ay siiso Soomaaliya kulankan ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa wafdiga uga waramay guulaha ay dawladdu sameysay dhowrkii bilood ee la soo dhaafay gaar ahaan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo sidoo kale musuqmaasuqa wasiirka arrimaha dibadda ee Norway Borge Brende ayaa dhankiisa sheegay in ay sii xoojin doonaan xiriirka kala dhaxeeya labada dal wuxuuna tilmaamay in Soomaaliya ay sameysay horumar la taaban karo afartii bilood ee la soo dhaafay isla markaana loo baahan yahay in la sii xoojiyo wasiirkan ayaa sheegay in Norway ay sii wadi doonto taageerada dhinacyada badan leh ee ay siiso Soomaaliya gaar ahaan arrimaha amniga dib u heshiisiinta iyo dhismaha hay'adaha dawladda wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo